asxaab badan waxay isoo weydiiyeen sidee baan isku dhufashada sida ugu fudud loo bari karaa ardada. maanta waxaan ku hayaa hab cajiiba oo marka tiradu 9 ay ka weyn tahay isku dhufashada si fudud aad ku bari karto ardada. kaalay sabuuradaynu tagaynaa waan ku tusayaa adna calculatorkaaga igula shaqeey. okay soo soco. tusaale 92 haddii lagu dhufto 98 caadiyan anaga waxaana la baraa iskuulka ardadana lagu soo baray sidana lagu soo baray. okay in la yiraahdo 92 lagu dhuftay 98 dhowr tallaabo in la qaado. tallaabada koowaad talabaad saddexaad marka la isku wada dardaro adiga oo number la wato ama carry number mar walba aad wadato oo numberka kale lagu sii daray. taasi waa methodkii ama habkii iskuulkana lagu soo baray. haddaba waxaan ku barayaa habka fudud habkaas oo markiiba aad ku soo saari karto. marka saa u eegto jawaabta soo bixi doonta markiiba aniga hadda waan sii fahmayaa waan ogahay maadaama aan garanayo. okay maxaan samaynayaa waxaan isticmaalayaa 100 ayaan isticmaalayaa 100. okay markaan haysto 29 maxaa 100 iga dhiman xamse 92 markaan haysto 100 aan doonayo imisa ka dhiman 8 okay 8 halkan ku qoro. okay waa dhamaatay 98 maxaa 100 ka dhiman 2 inta soo macada صح يعني clear okay استعمال مركا minus استعمال okay 92 number kan waxaad ka jartaa labada ka jar 92 si isweydaar 92 minus 2 92 laga jaray laba waa imisa 90 jawaabta kood waan haystaaba صح jawaabta kood waan haystaa laba number kala ii dhiman. maxaan samaynayaa 8 ayaan ku dhufanayaa labadan 8 ku dhufo 6 iyo 10 واو سيد دخسو easy. haddaba sidee baan ku keenay 98 haddii laga jaro 8na waa maxay 98 minus 8 waa maxay waa ilaa 8 baa ka jar 190 waa isku mid kan marka laga jarana waa 90 sida marka la jarana waa 90 labadaba waa sax. marka calculatorka ku eeg daarabtid tiradan dheer miyaan qaatay ما استعمالي waxaan isticmaalay short answer short okay kaalay halkan haddana easy fiiri 94 boqol maxaa iiga dhiman 6 okay 96 na boqol maxaa ka dhiman 4 maxaan isticmaalay minus isweydaar 94 haddii laga jaro 4 waa maxay 90 okay 96 haddii 4 laga jarana waa 90 waa isku mid labada sax soo ma minus okay 6 ku dhufo marka 6 times 4 6 times 4 waa maxay 6 4 ku dhufo 24 the right answer is 9024 واو سيد دخسو finish. how about that عجيب soo maaha adigu waxaad isku daydaa marka inaad ka jawaabtid 95 a time is 97 bal commentiga kaga soo jawaab this commentiga kaga soo jawaab inaad kaga shaqayn kartid ya soo wax fudud maaha commentiga adigoo raacaya habkan raacaya laakiin markay tirada tan tahay iyo habkan isku mid maaha tan qaab kala looga shaqaynaya. okay 22 lagu dhuftay 23 waa maxay 3 kaliya soo qaado 3 okay talaabada koowaad 2 lagu dhuftay 2 ku dhufo 2 2 times 2 4 okay talaabada labaad maxaan samaynayaa 2 lagu dhuftay 3 2 ku dhufo 3 2 times 3 6 halkaasaan geysanaya maxaa ii dhiman dhexdii okay 2 lagu dhuftay 2 2 times 2 waa 4 okay 2 lagu dhuftay 3 waa 6 isu gee marka waa 10 halkan maxay noqonaysaa 0 waxaan wataa 1 okay jawaabtu waa maxay 6 eber 1 4 uge 5 the correct answer is 506 hab kale runtii uu ka duwan yahay kan laakiin tricks-ka ama khiyaanada isku dhufashada waad baran kartaa dad kalena waad bari kartaa laakiin maanta
waxaynu isku eegaynaa habkan fudud sagaashan wixii sagaashan xaggaa ka xigoo dhan boqolka sida ugu fudud ee aad u soo saari kartid nambarada adigu waxaan kaa doonayaa commentiga haddii aad fahamtay sagaashan iyo shan lagu dhifto sagaashan iyo toddoba maxay noqonaysaa biliis isticmaal habka fudud ee boqol maxaa ka dhiman kadib labada hore sida dee loo kala jarayo labada kale la iskugu dhufanaya waad fahamtay waa saaxiibkiin saciid xagaa iyo saaxiibkii xamse oo idin leh ha lagu baashaalo insha allah muuqaalkan wuxuu kaa doonayaa like iyo comment dadaa la barya dad baa la barya dee soo maaha commentigan uu kaa doonaya share mala socota horta bogga saciid xagan ya saciid xagan lama socod soo maha haddaad la soconin hadda flow gareey haddaad hore la socotin saaxiib waad mahadsan tahay tiim kale nagu soo biiri waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu